بوليس كتيك بزو ما تتعلم بردي برموسيا بوليس كتيك بزو ما تتعلم بردي برموسيا بسيال باللب اهو تبطرنا هايسدو ينبريرو كلها الله بتباغي بوليس لا نبت مالفوغا والبريد لا بوليس ما بيرد الفرا والفريق لا بوليس ما بيرد الفرا قدر مالها بوليس ما ملك مشترى يسمى مالها بوليس ما بيرد مالفورا في المالكورا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته fiirsadyaal kana sharaftullah oo meelbisin rogdan hakado wada barnaamij gaar ah oo nu kafiiri doona guud ahaanba sadilinka dabaldegi xuska ha ku wareegtay maalinta la aasaasay ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo waliba geeka ka dhiiday gudaha magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay xuskun iyo waliba u sahaayay guud ahaanba ku dhii degmooyinka iyo gobolada gudaha dalka Soomaaliya walina kumida magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay magaalooyinka sida eedkin weyn geek loo hoosay 74 sano guurida ka wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliiska Soomaaliyeed sanadka markii sahay 1948 ya waliba geekiyena ku wareegatay 74 sano munaasabadon la kuwiinayay 74 sano guurida ku wareegatay maalintii la aasaasay ciidamada booliiska Soomaaliyeed ya waliba geeka ka dhiiday magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay الطريقة بودا نبسوقي دينو بدن بعد أسلوب تبو يسيال بلابو ليمبدو نقرنوا بوليسكا جيشوي بوليسكا من الطريقة بودا نبسوقي دينو بدن بعد أسلوب تبو لسيال بلابو ليمبدو مقرنوا بوليسكا وجيشوي بوليسكا ya waliba miirsayoon ku hadalana mas'uuliyiin ku tirsan dawladda koonfur galbeed Soomaaliya walina munaasabadaas ay qayb galay wasiir Xildhibaan iyo dhammaan qeybo shir duban ee saraakiisha ciidamada booliiska Soomaaliyeed mas'uuliyiinta miirsay ku hadalaya waliba ay ku mitaayana gudoomiyaha gobolka Baay Maxamed Ali Yunis iyo gudoomiyaha degmada Baydhabo Abdullaahi Ali Watiin oo ku mitaayeen mas'uuliyiinta gobolka degmo oo qayb ka hayeen xuska maalinta booliiska Soomaaliyeed oo geekiyo hambaliyeen ka darayeen dhammaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo aan ka taasiyeen waana intii ka dhimatay garahay dhawaan ku dhii magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya oo geek may booyo xusahayaan meel ka Soomaaliya ku roogan madalamaadna ma inta asiyeen maarta asii daraad ka dhiiri magaalada Muqdisho iyo ciidanka booliiska may boon diyaar garooween sanad guurida geegantan fadhiin diyaar garooween taasi may booyo may boon taasiyay tankan may boo xaqiiqdii ciidanka booliiska geeka magaalada Baydhabo rooga ama koonfur galbeed oo magaalada Baydhabo ku sugan oo hormuudka in taliyaasha ciidanka booliiska oo Generaal Mahad iyo taliyaha Dugudow iyo taliyaasha qeybta Shaduun أنا إسكجارة ما يبغى شغل يوهاي ما يبغى شغل حقيقي ما يبغى لحقري كرماء شغل ما يبغى مهم أبو شدة جيك مهم ما يبغى يهاي أيضا كأمي صوم يو أيضا كأمي صوم يو كم يبغى جهد يو جيلين لتبغى الأبوليس يو مقال بلو كتاب برا ما يبغى شغل يو جيك هاي مقال كهاي أبنيك يو ما يبغى لحقري كبولشدة
iyo dhamaantii may boto sifay may bolan shaqay may booyahayti hadabaan saldhigi cusub ya magaalo may booha korren ogeeg may boos joogtay may bolan shaqay taasoo may booliska hamii maalmay baroondo iyo may dhabar adeegsiin iyo bulshada may amaanshay badbaadi may yo shaqayaan marka may hambali gaareen day may taliyaasha booliska koonfur galbeed iyo taliyaasha booliska degmada Baydhabo ee qaybo shalgid may xaqiiqdi may tahaniid iyo hambali gooniyaan dare shaqada wacan iyo may nadiifka oo may raas iyo hay may xaqi may hambaliyan xaqi may abaalmarin may ya mudanyin booliska meel ka siro may abaalmarin mudanyin waa ciidan okay oo la arko shaqeeyis oo la iska halay kor amaanka geek may la halay kor may ciidanka boolisku waa ciidanka may shaqeeyis may bulshada xaqal la suub may ciidanka may boolisku ciidanka may shaqeeyis may raaysa bulshada may oo fahmaayo may dhaxgalayo abashadahan kuween may ciidanka may boolisku way xaqi may raaysa in geeka sanad guuri 34 xusna oo ciidanka booliska magaalada Baydhabo koonfur bay dhisay xusna may ciidanka faanu taas may in kama hadnagaan lan alaala lan kamay ka jeesidi gaan ka jeesidi ama dhinac dhaqaalaha haatoy dhinac tababarada haatoy dhinkaas may raaysa ciidanka ma hadnagaan Baydhabo may dareemaysaa dhinkaas may in dhismayno horumar badan ka jira dhinac CID may shaqeeyahayta dhinig may raaysa traffic may raaysa shaqeeyahayta dhinig may raaysa dabagalka canshuuraha may hadinta lan shamay shaqeeyahayan dhinac amaanka may sifay may lan ka shaqeeyahay taas ma sheentay aas-aaski booliska oo laha aasaasi 70 iyo 4 sano ka hor laha aasaasi may geeg sheentay in shaqada wanaagsan may wadan may booya sheentay wasaaradda amniga may nafsi may ciidanka ma hadnagaan dadaalada iyo may tababariya may booyaan suubaad ciidanka booliska walaalaha amisom oo geeka boolis ahaan il roog oo hamingi maalin surun iyo may kabaasi building suubiyan inta bariyo suumar welba la dhis oo booliska Soomaaliyeed meel kasto iyo roog oo mudnaan iyo sharaf iyo tixgelin kala bulshada Soomaaliyeed meel walba yeeda roogda ani la hoose ciidamada booliska dhaqdhabar ngata waliba eedeedan ka farasan kaasatan maanka farasana ciidamada oo waliba ku howlgalaas deegaanka koonfur galbeed booliska sida oo wax tarka leh oo iyo handhawaayaan bulshada handhawaayaan oo ku difacaan aduusho oo mid walba hamin igeedatiyo on jiifadaan oo ka haayaan oo la erkor amaawiina waliba ku jeediyeen la erkor waylana marwalba dadkin idalkin diintiina difacadaha tana marwalba haka dhawaada walsiinka amaanay haka dhawaada wal qarsoonka jarme dadaalka san qobataan wal laaba korme geeki mariski may largaay boolis oo waliba shal shakiisan oo isdaaways inta la etlu guray laakiin uu ma aragnay sanadkan booliskan oo reer Baydhabo macna koonfur galbeed ani boolis nadiif madaxdii iyo naydableeyo dhatiyo ani iska wada shaqeeyas oo amnigu ku wada shaqeeyas maylana ciidamada kale oo hadii nagate reer koonfur galbeed hadii nagate militariga hadii nagate daraawiishta hadii nagate adduubta maylana ciidamada booliska masiin ku tababar badan ka dayda masiin ku baas badan ka dayda masiin ku walbarash badan ka dayda way may wali muku badan walwalbi gaban laakiin tayada geek booliska hadii uu reer koonfur galbeed uu shacabka hayno bi amaanto uu hayne mahamuujiniyo dajiifadan maylana marwalba ciidamada meeli oo waliba waa ciidamada militariga geek mariska la rajari ciidamada hoog la rajari geek may nagatay ciidamada hoog oo reer koonfur galbeed ciidamada booliska nagada marka maylana lan walba unduroog shakhsi walba meel kala jar waylana ciidamada booliska hal taageeroy dadka shacabka ulmaawdiinta odayaalka meel walba roogan booliska ma in hayana ani aawshoni aadiyoni arishoni it yan hayan booliskin hakufat markeedeedan ma santin booliska waliba amaantin isi shaadatan waysan lana tan to ku sibilaarin asin ku sugan anti walsan amaani atan isin njiifatan to way marwalba walsin ku baahanyi dalkin dadkin dhaaratan wajoola juudil singili taasahay marka taasalaha madaada kale oo aradan qoytay oo anti kale aan hilmaamin haanasayn waliba haayana gudoomiyaha degmada Baydhabo Abdullaahi Cali Watiin iyo gudoomiye gobolka taliyaha ciidamada booliska gobolka Baay
jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan ooso iyo korneel cabdullaahi cusmaan oo iyo ku hadaleen ahmiyadda iyo lata maalintan waa 20 Diseembar waxaan u maleynayaa 74 sano u jirsadaan qiyaasaya waa saas meel kasta uu joogana maanta waa feestaynaya ilaahay waxaan ka barinay tanteeda kale inuu nabad nagu gaarsiiyo ee barwaaqo iyo haddaan ilaahay ku diidin bashbash taas waa ducada markaan ka gudbo dhammaan saraakiil xigeenka iyo dableyda ciidanka booliiska meel kasto ay joogaan waa u tahniyadeynaynaa iyo xaasaskooda iyo carruurtooda ducadii aan ku celinayna tanteeda kale inaan wanaag ku marno sidoo kale iyo kasii fiican ilaahay hana gaarsiiyo dadaalka badan oo loo soo maray nabadan aan hadda meesha ku soo marnay ay ciidamadu u soo mareen amniga gaar ahaan aan hogaaminayno booliiska hogaaminayo ahna hooyadii ciidamada waa ummaddu maanta waa ku farxaysaa waana u mahadnaqaynaa dadweynaha halkan ku nool aad u jecel nabadana ayagana baraare iyo barwaaqo iyo bashbash ayaan ma garanaysaa ugu ducaynaynaa tanteeda kale inaan wada gelino nabadna nagu wada gaarsiiyo taas waa ducadii sidii qaabka يعني ما أنت يتمركن الله فيري قبل هذا أنا هنا نقص مرني كل بالنمبر كلا بعض وبنادي لنا نقدون أساسا قياسنا أساس ليه ما هو تنتهي كلا واحد نقدم أوامر دونا هذا بان بيديان وذنا دربان كيان قراعنا ترون بدي أنا جمعك وزير كأبني يا وزارة أرميها جودها وأنا للجوجان أو أنا لفديان waxaan rajaynaynaa dadkii turumbadan inaan qaadi doono muqdisho la geyn doono la soo bari doono aad waxay loo danaynayaa macnaha in geedahaas la barto dawladda koonfur galbeedna waa u mahadnaqaynaa aad baan ugu mahadnaqaynaa sida ay booliiska u qiimaysay alaabtan waa la soo gaday cusub yaa noo taalla maca turumbadii wixii oo dhan waxba nagama maqan kaliya waxaa naga maqan nimankii turumbada garaaci lahaa mise ciidankii la bari lahaa yaan aqoon u lahayn ما أنا علابتي نجمع مغرب واتلا وعلى صاقدي مدحوينها صاقدي والنوتلا وحن رجعنا إن عندك صوت عبر لها لا تعبر لها وجدها نوقش شقين لها تربوين كي غلبك إن حمر لاق هذا لو صبره مهمة وعواي معلم بان عصني لكن قلدي بوليس كأنت أنا قابل سند وحيلين حقنا لا كان أدوح أقبر كرنا نمان تاس ده وزير كأبني وزير كأرمها جودها لبض وانا للجوجات شيء هالكاس ومرايا waa garan kartaan dad hal qaada la yiri dibkeeda ilaa aada u garan kartaan annaga ayaa gaabinay oo wadadii xaaladeedu waa isla soconaa u maleeyay haday wadadu jiri lahayd dhag bay ahaan lahayd marka taasi saa ula socdo waxaan leenahay madaxda halkaan fadhido iyo wasiirada iyo maamul degmo iyo gobolba waa nala fadhiyaan waa soo dhawaynaynaa aad baynu u mahadsan yihiin xafladda ay nagala soo qayb galeen ciidanka niisa waa nala jooga militariga waa kuwa gab yahay soo ma hayn ninka gabayga noo tirinay ciidamada militariga ka tirsan waa sax ha waa nala joogaan cid naga maqan ma jirto qoladii hadda inta ka maqanna waxa waay meel kale un bay shaqo ka hayaano dambiye ee dhii ana madax CID da ah sanadkii hore iyo sanadku madiis barbar dhigna dambiyadii una marka oo gaar ahaan oo dambiyada culus ee una hanagali ama la kulungni barbar dhigmadii soobina sanadku waa yiri sanadkii hore way 400 walka ka dhawaad yahay wali hana mari sanadku waa eedan ku yiri tirada una diiwaan geliyni oo booliiska ama CID-da 210 ilaa ma dambi lama boqol iyo toban ilaa ma tirada markaas garsoorka iyo maxkamadda anka gudubna oo fadhiga la ka dhamaayay midii leey macnaha qofku walaalka waay sakaleeleen hali macnaha maxkamad min gudubna way nagadeena sodon sanadkii hore way arnay 400 iyo xoogaha ayaan dhamaan ahaan guud ahaan madin kulum marka hadda sanadku eedan ku yaraayni 210 ilaa managda sodon way buu tiradii la ka dhamaayay fadhiga la ka dhamaayay
kiisaska maxkamadda liingudbi way haayana 9 يا محكمة الجدود سجالي كوكاس أفرتونكم ميدا أول حكومة محكمة الحكومة أفرتون شان هذا رومانك إن حبسية محكمة السجيال رومان ويبوا محكمة السجود هيا أفرتون اللي إحنا محكمة حكومتي دمبيجي الله كهلي بارستي حكوميين مركزي أي دي الجود أهان لما ده أسبوعي تومي لما ده هايان ولله حكومي ويبوا أفرتون اللي هو ولله كلام هاي فرد ويبوا صدون محكمة ولي إنجودبي أو محكمة نفتتي أبا ما دي محكمة اللي إنجودبي ولا فضاي بروف ولا كعدي هو من قاعد يتم كرسور كمحكمة يا لا أود أن لا أني حكمت هذين أرجو يتم دي يا أود أن لا أفرتون أما كمحكمة دي سيديس ما كترد جود أهان أنتاسو kaasayn waliba hay'ad taliyaha ciidamada booliska gobolka Bay General Mahad Abdurrahman Aadan iyo Cornel Abdullaahi Usmaan oo si wada jireenka hambaleen waan eedan ku hadaleen ahamiyadii la tamaalantan markuu la kataba mas'uuliyiinta iyo waliba suudmeelasay ku hadalay xildhibaan ku tirsan xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya xildhibaan Maxamed Adow oo ku tirsan xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya iyo waliba si dhiirigeliyay ciidamada booliska Soomaaliyeed soonan باقي انت مروب لا تاغيرا وان اهميه فايللسي ciidamada meewalba iyo roogan ahgaaga koonfur galbeed mas'uuliyiintii koonfur galbeed ahna wasiirku xigeenka beeraha ee waraabka ahna mas'uuliyiinta ka tirsan koonfur galbeed oo maanta xafladan oo si sharaf leh inka dhawaayay macnaha akis booliisiyana ah oo taasoo haraaradii gaag aad iyo aad jecla macnaha booliska yarka walaalkay sida amaan waa booliska hooyuwa aabuwa awow walaal iyo waalid u suway booliska sida hortub in sheegan generaaladii booliska ama mas'uuliyiintii booliska horay warbixin ku dhiibeen booliska markii feestadiis eto ilaa qaybihii u si shal dugun anshuuraha laanta wadooyinka ee traafikada laanta CID-da qolo walbo way ku taariikhayaan dhibaatooyinkii iyo wanaagii soo qabadeen iyo wixii dib ay sila kulmeen iyo ku taariikhayaan booliskina marka intaas ay lan walba ku taariikhayaan lan walba ma rabaa raayigan la siinka abuuro waayo ina aysan kibka si daarsiidaan raayiga moojineen ma aha macnaha lan koole inuu taariikhda sanadka hore isku sheekeeyo qolo walba qolaki wareejiya hilkaas marka hilka la siinka wareejiyo waa generaalka korneelada ku hadaleen maana taariikh ahaan 230 kiiska soo marin iyo 300 soo marin 400 soo marin dhibaatooyinkaas inta ma luun ku baahanyaa ina isna marka wiilashin yar oo jiirilka waxa soo korayeen tababarka qaadayaan waa in horta korkin galaa boolisnimada iyo abniga shacabka ina shaqeeyo way tan korkin giliidan taasna waa ina isna maana taariikh ahaan hadii qorata ninka booliska ma ku rabee abnu way mas'uul ma ay caalamka dawladaha intaasoo dawladood la sheegaa lanka hadii wadan dawlad tibil daglay ku dhaagi jir koow airport markiis ku dagal lanka booliska calaamada safiriya goodir way wala intiin saaran nabadgelyo way kan intiin saaran goodir lanka xoog badan mal gaasoo ma jiraan geedan ma la hoos maro kor walmiki bilaa galaw hadalkood lankaasi taa korneelka CID-da dhih ninka booliska dadku hogaamiye ku hajidan dalka 28 sano burbur soo maray lan boolis dib malki sheegno hogaamiye ku had inuu ko qaadayo ciidan qaadayo Malaysia ama qabiil weerari ama macnaha isku day belelaga meel in gal lan booliska malki sheegno lanka booliska dhar atirjin ku dhoore dhar adway lanka booliska way la rabaa lan saaf waa inuu haada ma yasin sheegay booliska xafladiis gaaga aad iyo aad ka mahadsantiin aad iyo aad ka sharafsantiin magaalada uu macnaha security-siinka nabadgelyada aad iyo aad aan sugteen taasoo ma la rabaa lama jabaaro booliska hil adeeg ka saaran booliska ma soo qodsadaane nabadgelyada xooga dalka Soomaaliya kaasayn waliba ay labaan ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya oo soo kulan la dardaarmay inta ciidamada ciidan taageera milatariga booda nabad sugidda inoo badan bahda asluubta boo
geesiyaal bilaabo limbadu nukornuwa booliska milatariga boodaw nabad sugidday loo badan bahda asluubta boo geesiyaal bilaabo limbadu nukornuwa booliska gabagabadii waliba suni meedhasay ku hadalay munaasabadaasna hiray kusamaga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee wasiirka amniga dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Hussein Maxamed Xasan Eelay oo sagab ku hay mas'uuliyiinta meedhasay ku hadalay ya waliba Soomaaliintan ciidamada booliska Soomaaliyeed usan ka hambaliyay waanu sideedan bogaadiyay intii eedan dhiirigeli dhammaan ciidamada booliska Soomaaliyeed mee walbiyo rogan saraakiil maamulka degmada kan gobolka saaxiibadan amisom ee dhinaca booliska golaha wasiirada dawlad goboleedka koonfur galbeed xildhibaanada marti sharafta kale widaaykan Cabdirashiid oo xamar hanoo deeri raabta dhamaantiin maysanka salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacdu salaam wali eedan ka faraxsanaa waana hambalyo indiray dhamaan ummada Soomaaliyeed meel walba iyo roogto gaar ahaan ciidamada booliska meel walba iyo ku sugan yihiin Soomaaliya wali laha hambalyo sanad guurida 74 ee ha ku wareegtay aasaaskii booliska Soomaaliyeed eediyada aan ka hambalyayan wali amaange ama faale ama la ku hadal karo saraakiil ciidanka ku hadalay dad kale booliska taariikh badan ku haya ku hadalay anina iyo la mid aha wali laha booliska waltarsho walgeek khudbado ama xaflado la koobo kor inay hayna aaminsan wali marlamaad ma hadnaga wali marlamaad aan hambaliyay booliska dhamaantiyo xaasasho hooyooyinsho aabiyaalsho iyaalsho meel walba iyo dalku ku sugan yihiin wali laha hambalyo hobaan hangnagado booliska ka sugan deegaanka koonfur galbeed wali iyo qobada koreen wallaha koobo korme wali tarteen wal tirmaaw ma leeyahay wali isan tarteen wal geek ama lanko ama lama yo sheeg koraanme eedeedan ka faraxsana inaysan geek gaad ka ciyaaraha ka martaan sinabad beledka dhatiisnaysa ka martaan oo xasuusiyaas taariikhii hore in ciidamada marmariyo shacab soo dhamaraano iyo gaardiyaan oo xafladda dhig eedeedan farxad galiyaas wali amaantaas lee saraakiil ciidamada oo ka shaqeeyay nabadda ee dhalinyaradu oo aan teegin nabadda oo isan ogtiin meel oo isan ogtiin meelayo ku sugan yihiin beledka wali ka sugana shacabka ka sugan ciidanku hortay teegin oo geesiyalka beledka wali ku sugan yihiin banaanshay si ummadun badbaadiyaan hamin rooba ka qobdahay dhaxanga ka dhiyahayta oo guriya baryaano ba marmar go'owiin hogsadahayna dhaxanhay lanki baryahay magaalada Foorashe si in badbaadi dhalinyarada ama hooyooyinka ama shacabku reer Baydhabo ka nool si in badbaadi wali dhibay u marhay war qabtaan wali lana insha Allah ta'ala ilaahayna siin ku abaal mariyo doon dawladdiin Israa'iiliina siin ku war hay doonta lana eediyadna ka mahadnagaan تنكل ولي رجعنا إن شاء الله تعالى بإذن الله الكريم سنتكون سنة شيء تطبات سنة جورة تطبات شنات يو إذا ما تبليس الدولة قبلات كونفور قلبات ترى دقيق يوين كتر بدن إن شاء الله تعالى إنه نديرنا دقموين كو إذن لين توبرو قبل الله هذا إذن لانتين إذن لين توبرو إني ينقطو كده يشيب بلد كبعد سدين نبت اسمهم كويلين ديجانا كونفور قلبات أرد مانتي أو نبدين ونديرنا رجعنا إن شاء الله تعالى ولا جرى قرش دير أو كصاب سمبوليسك أو إن شاء الله تعالى وزارة أو كاللاس صاحب بدي الدون ككوميدا يا ولي إن شاء الله تعالى قرش دير جرى أو بوليسك إلى هذه شيء ولي رجعنا تربضنا بوليس إن اللي بالعود دون قرالشو هانك روجنا ولي يوم باهين لحن ما يستردون فرحة درتي جيك ولي إنه شجنب ولا إنه ما إيه دي ده سين كم حد نجان
وللنا دذالنا وللنا دذالك الله ملابا عدو أتكاتن وللنا دمسترا والسلام عليكم ورحمة الله. milatariga booda nabad sugidayno badan bahda asluubtabo geesiyaal bilaabo dhimbadu nukornuwa booliska milatariga booda nabad sugidayno badan bahda asluubtabo geesiyaal bilaabo dhimbadu nukornuwa booliska geeka oo kaliya laasaas ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo waliba ya ku wareegtay 74 sano walina geeka magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay nasiiban weelatay inta safaylanka dabaaldega xuska 74 sano guurida ku wareegtay maalinta laasaas ciidamada booliska Soomaaliyeed guud ahaan fiirsada kana sharafta loo waliba inta kaaf meerana barnaamijka gaarkaay oo ka fiiriyani munaasabada la kuwinayay 74 sano guurida ku wareegtay maalinta laasaas ciidamada booliska Soomaaliyeed barnaamijkan gaarka ya waliba san fiirsadaasina telefishinka caalamiga ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya barnaamijkan waliba siin saaray meerinaysan kula soo siiyay anoo magacay Masla Salam Mohamed Masla Raage inta barnaamijkan aad oo hawadan ku kulmaana baada TV-ga dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya isku duuban wasin leh saas maana Allah wasalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh بوليسك ديك بزو ما تتعلم بردي برموسيا بوليسك ديك بزو ما تتعلم بردي برموسيا بسيال باللبقه تبطرنا هايسدو ينبريرو كلها الله بتباغي بوليس لا نبدنا الفوقا والبريد لا الملك